macluumaadka lagu kaydiyo internetka ayaa halis ku jira iyadoo ay soo kordhayaan dadka u dusa macluumaadkaasi oo aqoontoodu ay sii ziyaadayso. haddaba dawladda Mareykanka ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u soo saari lahayd jiilka mustaqbalka kuwaas oo la filayo inay door fiican ay ka ciyaaraan habka difaacista macluumaadka ku jira internetka. warbixintan waxaa inoo diyaarisay Saxar Maajid waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan. dagaalada u dhaxeeya wadamada hore u maray kuma xadidna goobaha dagaalka oo kaliya. waayadan wadamadu waxay isku qaadaan weeraro dhinaca internetka ah oo ay ugu dusayaan ama ku xadayaan macluumaadka wadamada ay ishayaan. wadamada ay colaadu naga dhaxayso ama naga soo horjeeda nagulama dagaali karaan goobaha dagaalka. marka sidaas daraadeed waxa ay isku dayaan siyaabo kale oo ay nagu soo weeraraan. sida ay sheegtay majalada wax ka qorta arrimaha ammaanka internetka iyo xogaha kombiyuutarada ee Cyber Security Ventures Magazine la yiraahdo. marka la gaaro sanadka 2021 waxaa dunida buuxin u baahanaya 3.5 milyan oo shaqo oo dhinaca ammaanka internetka ah dunida oo dhan. buuxinta shaqooyinkaasna waxay caqabad ku noqon doonaan shirkadaha dunida iyo dawladaha. Victor Piotrowski waxa uu ka tirsan yahay mu'asasada sayniska qaranka ee Mareykanka. Cyber security is a very challenging field. cilmigan ilaalinta iyo difaaca xogaha internetka waa mid aanan fududayn. haddii aad ka fikirto diyaarinta qof ka shaqeeya waa inuu aqoon u lahaadaa xirfado farsamo oo dhinacyo kala duwan leh. waxay ka bilaabanaysaa waxyaabaha sida kombiyuutarka oo kale, sida la isugu xiro shabakad kombiyuutar, sida ay u shaqeeyaan hirarka taleefoonada gacanta, waxyaabo kale oo la xiriira internetka. sanad walba liiskaasi waa uu sii badanayaa, waana wax adag in mar walba cilmigan uu sidiisa sii ahaado. si loo buuxiyo firaaqa shaqooyinka noocan ah ee ammaanka internetka, dowladda Mareykanka ayaa maalgelinaysa deeqo waxbarasho oo ay la kaashanayso jaamacadaha Mareykanka. waxaan waxbarashadayda shahaadada bachelorka ee jaamacadda aan ku soo qaatay cilmiga kombiyuutarada waanan jeclaa. markii aan rabay inaan sameeyo masterkayga ayaan jantay in aan ku sameeyo wax ka mug weyn oo aan isbeddel ku keeni karo. Natalia Larson oo heshay deeq waxbarasho ayaa cilmiga difaaca iyo ammaanka internetka iyo xogaha kombiyuutarada ka barata jaamacadda John Hopkins ee magaalada Washington. Larson waxay ku dhiirigelinaysaa dumarka inay iyana ku soo biiraan barashada cilmigan oo hadda raggu ay ku badan yihiin. waxaa ugu wacan sida filimada iyo shooyada telefishinadu ay u muujiyaan raggan mihnadan ku shaqaysta amaba bartay. waxay ku tusayaan rag xiran fanaanad koofi leh oo wejiga qarsanaya oo guryaha qaybta dhulka hoostiisa ah oo mugdi ah kaga jira. marka waxay la tahay in dumarku aysan lahayn wax u furan oo ay baran karaan, waayo gabdho badan ayaa raggan ay balo leeyihiin oo aan isu arkin inay baran karaan. kaliya dadka Mareykanka u dhashay ama haysta sharciga deganaanshiyaha ayaa dalban kara deeqahan waxbarasho ee ay dawladdu maalgelinayso. marka kuwa helaa ay waxbarashadan dhammaystaanna waxaa laga doonayaa inay u shaqeeyaan hay'adaha dawladda Mareykanka ugu yaraan muddo u dhiganta intii ay deeqda waxbarasho wax ku baranayeen.